shirka waxaan u arkaa wanaagga iyo qiimaha uu ummadda reer Khaatumo iyo reer Somaliland ugu fadhiyo wuxuu yeelanayaa cadow badan cadowgana waxa ugu daran ka cagaaran ee ku dhex jira maamulada ama Khaatumo ku dhex jira ama Somaliland ku dhex jira waxaan kaga faa'iideysanayaa hadalkan qodobo aan u arko kuwa maanta laga wada hadlayay inay yihiin oo ugu dambeyntii xalayta laga hadlayay nin horgalada Somaliland ka mid ah oo la yiraahdo waa wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland marada Somaliland wada hadlayno inaanu ku xaqnowro waxooda xaq baanu anagu u leenahay iyaga laftoodu inay nagu xaqnowraan karaamada iyo Khaatumonimada waa leeyihiin laakiin waxaan maleynayaa horgalka dabeecadiisa waxay tahay ilaa uu meel isku qaado inuu yiraahdo ma bisla arrintaadu waa kuma horgalkaas waxa weeye Yaasiin oo xalayta ka hadlayay baratool oo ka hadlayay shirka iyo wada hadalka si bool u hadlay waxaan leenahay wuxuu meelka dacadaana ku sameeyay qodobkii labaad ee heshiiskii lagu galay oo warqadiisa ay tan tahay oo ahaa in wixii fadqalada iyo dacaayad gudaheena ah in meel looga soo wada jeedo waxna laga qabto waxaan leeyahay haddii lagu ogolaado dacaayadda iyo kicinta ummadda reer Khaatumo iyo hadallada meelka dhaca magac wasiirna uu sheeganaya annagu waxaan u aragnaa Khaatumo haddaan nahay Somaliland baa la ogol arrintaa waxaanu rabnaa si wada hadalku u sii socdo oo qodobka saddexaad sheegayo oo caddaynayo in meel looga soo wada jeesto ciddii xumaynaysa ama gacan saddexaad ku ah wada hadallada annagu diyaar baan u nahay